waxaan jeclahay inaan u baaqo xirsi jaamac gaani wasiiru dawlaha madaxtooyada Jubbaland kana mid ah madaxda dhuusamareeb joogta waa dhageysanaysay wuxuu yiri waxa ugu weyn waa kalsooni darro dhinacyada isku hayaan kalsooni darrada ma ku muuqataa saacad wasiir bismillaahi rahmaani rahiim atoosh waa salaaman tahay iyo xildhibaanka iyo Ismaan wada bahantii kalsooni darradu wax muuqda oo dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta u muuqata weeye waxaan isleeyahay maartay waxay u baahan tahay in la daaweeyo oo daawo loo helo maadaama dadka hadda siyaasadda ka shaqeynaya ay yihiin dadka loo baahan yahay inay ka qayb qaataan oo ka shaqeeyaan doorasho loo dhan yahay oo wadanka ka dhacda doorashadaas oo la rabo in maartay aan wadanka dib u noqon ee hore loo sii socdo waa gartay idinka warkiina waa cad yahay dawlad goboleedyada waxa tiraadeen doorasho dadban baan anaga soo jeedinayna maxaad ku salayseen wasiir markaad fikirka isla jehjeexayseen doorashada ay ka hadlayaan dawlad goboleedyadu oo anaga aan go'aan ka soo saaray 12 July salkeedu waxa weeye in wadankan la rabo xilli doorashada ay dhici lahayd in doorashadu dhacdo aanayna muuqan in doorasho qof iyo cod ah la qabto taasoo daliilka ugu weyn oo haysata ay tahay in guddigii doorashooyinku ay ayagu cadeeyeen inaan qaban karin xilligeedu ku qaban karin doorasho dhacda oo ay la yihiin waxyaabo badan oo la reebay doorashada maarta inay ku qabsoonto taas ayaa marka waxay khasbaysaa in la helo qaab ama hab doorasho lagu qabto xilligeedina lagu qabto waa gartay professor Dalha xildhibaan baarlamaanka ka tirsan Muqdisho joogta ku soo dhawaaw waad maqlaysay wasiiru dawlaha Jubbaland waxa ka sii horeeyay Ismaan Muxyidiin idinku maxaad qabtaan nacawta shirka waa baasantahay waa salaamaya saaxiibada khadka igula jira wasiiru dawlaha Jubbaland xirsi iyo Ismaan saaxiibkeena ururada bulshada kala masalaya waxa anaga ka ma aragtay baarlamaan golaha shacbi anoo ku hadlaya mar waliba anaga aan ku biraysannahay waxa dastuurka iyo sharciga dalka uu qabo ama uu markaasi nasiinayo in aan ku dhaqanno sida la og yahay wadanka marka loo fiiriyo wixii hadda ka horeeyay nidaamka doorashada aan soo wada gelaynay laga soo bilaabo carta ama kasii horeysay xataa maba hadda la sameeyeen golaha baarlamaan haddaan kasoo bilaabi lahaa xilligii madaxweyne Cali Mahdi balse markii gole ma aragtay baarlamaan la sameeyay madaxweyne Cabdi Qaasim xilligiisii marka lagu xijiyo xilligii ka dambeeyay dawladii asigana marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo tii iyadana ku xigtay madaxweyne Sheekh Shariif iyo tii iyadana ay ku xigtay madaxweyne maartay Xasan intaba waxay ahaayeen kuwa aanan jirin sharci dastuur oo markaasi ahaan inta maartay loo dhigay lagu gelayay markaasi doorasho federaal ah mid waliba xilligeeda waqtiga la gaaro sidii iyaga ay ku taliyaan ayay badi noqonaysay dadka markaasi ay talada ka go'do tii ugu dambeysay hadda anaga aan ku nimid waa doorasho dadban oo kulli dhammaan markaad fiirisid baarlamaan dadban xukuumad dadban madaxweyne dadban wax wada dadban ayay maartay oo ayada ay ku timid aragti ku salaysan fikrad madal oo markaasi iyada la wareegtay xukunka dalka ayagoo hay'adihii kale ee dastuuriga ahaa oo baarlamaanka udub dhaxaad uu yahay oo sareynta sharcigana marka la ilaalinayo isaga xaq u lahaa ayaa arintani doorashada dadban waxaa keenay maamul goboleedyadii iyo madaxdii markaa dalka oo ayaga isku dhafmay oo kadibna daaqada ka saaray baarlamaanka balse laakiin maanta wadanka
waxaa yaalla sharci doorasho oo soo maray nidaamkii dastuuriga ahaa oo ay soo diyaarisay xukuumadda oo ayada hindisi sharciyeed isagoo ah oo wasiirkeedii arrimaha gudaha iyada intuu soo diyaariyey golihii wasiirada ka shiray go-aanka gaaray lifaaq madaxda ma aragtay markaasi baarlamanka uu usoo gudbiyey amaaniraada guddoonka ma aragtay wasiirka koowaad ama prime ministerka oo uu yahay mudane maaragtay xasan cali khayre sidaa ayaa iyadoo dhinaca kalena iyadana loo igmaday guddi doorashooyin oo Xaliimo Yeeri guddoomiye ay ka tahay oo baarlamaanka isagana uu siiyey maaragtay authority-ga ama maaragtay awoodda iyadana ay kusoo diyaarinaysay wixii doorashooyinka la halmaalay intaba ayagoo aanan kala dhinayn ayaa golaha shacabka si fashane uu ku yimid uuna go-aan ka gaaray waxayna ahayd doorashadaasi mid ku salaysan doorasho qof iyo cod taasana baarlamaanka uu u gudbiyey madaxweynuhu dalxa xildhibaan dalxa madaxweynahana dikareeto kusoo saaray waa run sharcigaas baarlamaanka waa meelmariyey laakiin waa doorasho laleeyahay waktigii mudaxileedka way ka daba mari kartaa Soomaan ama way ka daba maraysaa oo la cadeeyay ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله أيها إلهي أيدي القرآن وكله واحد بري أديك آذن قرن كريم هيسكتين أنا سمينا أديك إن شاء الله وأم قدرين من ما تقير كرو وحا أنك صوت سعودو أنا قرنسية بحنا يوضحا وهذا ما أنت أما هنقضو قف ما أنت كتر سن دولة دحي أما كتر سن دولة معمول قبل ديالا وملاين مايو أنك شرعي إنان saarno miiska ayaa waajib nagu ah waana soo saarnay isagoo aan laablaab ku jirin oo dikareetaysan oo dhammaan waafaqsan wixii dastuur iyo sareynta sharciga uu nafarayay waa garta xilibaan dalaha hala gaarta maya waxay u taalaa ninkii ilaahay gaarsiiyey ha laakiin fiiri insha Allah meesh way ku jirtaa iyo qadarta rabbi laakiin mudaxileed baa qof walba loo soo doortay adiga baarlamaan baa tahay 4 sano lagu soo doortay December way ka dhacaysaa ma waxaad ku talinaysaa December kadib inaad kursiga ku sii fadhido xildhibaane aniga kursiga sharciga wuxuu ii siinayaa qoran marka xildhibaankii ibedeli lahaa uu diyaar ku yahay inuu isaga meeshaasi inuu soo fariisto oo aanan dalka aanan ooga tagin meel cidla ah gacantana aanan u gelinin waxaan dawladda nimada Soomaaliyeed iyo sovereignty-geeda ama siyaadadeeda ama qarannimadeeda aanan ku wanaagsanayn kuwa naga horeeyay markaad eegtid waqtigooda markii uu sidaan oo kale uu dhamaaday mid aan wax ku soo darsanin oo aanan asiga qiil u dayanin ma jirto madaxweyne xasan ma aragtay wuxuu ku darsaday 6 bilood madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu ku darsaday 2 sano وحد إيد إسكو هيتنا مجلس سنة أيضا اللقاري هلكن waa laga heshiiyey xilibaan dalxa ku darsashadaas is ogol iyo heshiisay ku timid maxaad ku diidaysaa haddii baarlamaankii idinka qoladan taageersan in doorashada sideedii lagu wado aad is ogol ka heshaan madaxdii dawlad goboleedyada annaga waa runtaada annaga wixii heshiis lagu yahay in la soo mariyo nidaam sharci ah naloogu keeno golaha shacabka aan ka doodno kadibna xaqa aan u leenahay inaan go'aan ka gaarno kaliya ayaan anaga u baahanay doorasho dad badan baad sheegaysaa doorasho tuur leh haday ku soo heshiyaan oo ayaga ay u keenaan haddii golaha sifa sharci ugu doodo oo ummadda Soomaaliyeedna iyadu markaasi mas'uuliyadeeda iyagu ay leeyihiin anaga aan u go'aamino sifa sharci bay noqonaysaa laakiin sidii kala hore oo kale inay madal ay go'aan gaarto baarlamaankana la dardaro oo dastuurkii iyo sharcigii la hareer maro taa un baan diidanahay anaga waad maasantahay su'aasha kale isweydiinayaan raba saddexdiina inaan idin weydiiyo waxa kamid ah horta inay doorashada nooca ay noqonaysa yaa sharci u leh ma golaha baarlamaanka ee xildhibaan dalxa uu leeyahay inaga waxaan go'aaminay nagama daba hadli karo ma dawlad goboleedyada ma gudoomiyaasha baarlamaanka waxaan rabaa su'aashaas inaan weydiiyo Cusmaan Muxyidiin oo Dhuusamareeb jooga Cusmaan haye atashorto ma santahay waxyaabaha horta ugu muhiimsan mar kastaba oo laga boodo waxa ay tahay khilaafaad badan siyaasadan oo soo laabtay oo 2016 dhacay oo hadda taagan waxyaabaha aan anaga dareemayno ugu muhiimsan waxa ay tahay fahamka federalismka iyo sida uu shaqeeyo oo aad maaragta kuwasha bal uga taagan yahay daadejinta maamulka dawladda in hoos oo dadejiyo oo aan sidii la rabo aan loo fulin
dowladda federaalka qaabkii u dhaqmaysay habkii loo shaqeyn lahaa oo aan wax badan laga diyaarin marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenaya in dadka dhan waa victim loo noqdo haddii ahayd maamul goboleed haddii ahayd dowladda federaalka haddii ahayd baarlamaanka su-aasha haddaa usoo jeesta marka sideedaba dowladda ayaa soo diyaariso nidaamka doorashooyinka baarlamaanka waa uu sharciyeeyaa kadibna waa la hirgeliyaa maamul goboleedyada waa meelaha uu ka dhacayo doorashooyinka ay ka dhacayo dooray ku leeyihiin oo maaha mid la inkiri karo intaba waa mid u baahan marka in laga shaqeeyo oo si wadajir ah loogu shaqeeyo xaaladda hadda marka hadda meesha hadda ay soo gaartay waa meel aada runtii dee qof walbaba uu mashquul ku noqonayo siyaasiyiinta sidii maaragta kuraastooda iga soo laaban lahaayeen iyo sidii maaragta u ilaashan lahaayeen posishanada ay taagan yihiin waxyaabihii dhacdhacayna waxay keenayaan inay saameyn ku yeeshaan isku kalsoonidii iyo wada shaqeyntii marka waxaa is leeyahay su-aasha haddaad toos ugu jawaabo runtii waa mas-uuliyad wadareed oo la wada leeyahay oo u baahan in laga wada shaqeeyo cid walbana ay kaalinteeda ay ku leedahay sida kii loogu shaqeyn karana in las ogolaado oo sharcigana la waafajiyo waad mahadsanta marka waad ka jawaabtay waa mas-uuliyad wadareedaa tiri dowlad goboleedyada iyo baarlamankaba xirsi jaamac gaani ma talageliseen idinka qolooyinkiina dhuusamareeb ku shiraya xubnaha baarlamanka inay yihiin tiir dhaxaadkii sharci dejinta dalka ma ku darsateen xisaabta markaad ku talinayseen in doorasho dadban la aado xatash waa mahadsan tahay dabcan sida uu cusmaan u sheegay mas-uuliyad wadareed weeye waxa meesha yaala baarlamaankan hadda baarlamaan iyo xukuumadda hadda xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay haysteen 4 sano inay ka shaqeeyaan wadankana gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah xilligeedan doorashada ay ku qabtaan way ku gaafeen oo maaragtay ma aysan meel marin waajibaadkii ka saaraa in maaragtay doorasho ay qabtaan ugu dambeyn xilligii ugu gaabnaa oo hadda maaragtay bilo ay ka dhiman tahay xilligoodii ayay waxay ku hambaadireen ama ay ku baraarugeen maaragtay inay doorasho ay ka hadlaan iyo nooc ay noqonayso iyo kan ilaa maaragtay ay markii dambe guddi ay saareen guddigii maaragtay xeerkii hadda maaragtay doorashooyinka oo xeer qabyo ah oo asagoo dhan maxsuus oo iska wada hor imaanaya oo dhamaystiray oo ilaa 4 xeer ay ka maqan yihiin ayay maaragtay soo bandhigeen xeerkaas wuxuu sheegayaa oo maaragtay uu cadeynayaa in maxaan ku yidhahdaa xaliimo yarey ama guddiga doorashooyinku ay labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka ka hor jeediyaan hadal jeedin ka hor sameeyaan xirsigaani horaan oga hadalnay su-aasha jawaabteeda ku soo koob ma talageliseen ma ku darsateen in baarlamaanka uu door ku leeyahay howlahan markaad idinka dhuusamareeb ku shirayseen baarlamaanku waa baarlamaan aan lagu aamini karin shuruucda hadda wadanka la rabo in doorasho lagu qabto waad ujeedeen maxaan ku yidhahdaa waxay yidhaahdeen annaga keliya qabanayna aqalkii labadii aqal oo baarlamaanka oo ay legislatorskii ama sharci dejiyayaashii waa iskhilaafsan yihiin midba meel buu aaday marka yaa lala shaqeeya ma aqalka saraa la tixgeliyaa ma aqalka golaha shacabka la tixgeliyaa yaa doorashada ka shaqeynaya waad mahadsanta isagaa ka jawaabaya iikaadi eedda baarlamaanka aad u jeedisay waxaan rabaa xildhibaan dalxa oo baarlamaanka ka tirsan inaan weydo xildhibaane wasiir gaani waad maqlaysa xirsi gaani wuxuu ku leeyahay 4 sanaad joogteen waxba kamaydan hadlin bilihii u dambeeyaad xeerar soo saarteen iskhilaafaya maxaad eeddaas uga jawaabaysaa wallahi horta wasiir gaani waxaan u malaynayaa laguma aamini karo ereygaas horta annaga waxba uma aragno laakiin jubbaland xildhibaanadii laga soo doortay inuu maaragtay isaga ay u jawaabi doonaan baan u malaynayaa waxayna u qalmin inuu isaga uu keenay oo aan wax lagu aamini karin meesha laakiin annaga dadkiina soo doortay wayna aaminsan yihiin wixii sharci ahna waxa aan annaga aan meeshaasi nasiinayane qof gaara iyo cid gooni ah horta kuma raali gelinayo waxaad ka jawaabtaa su-aasha ah maxaa 4 sano u sugayseen xildhibaan dalxa annaga 4 sano dawladdu waxay leedahay hay-ado dastuuri ah waxna xukuumadda iskale inay soo diyaariso oo ayada golaha isagoo hindisa sharciyeed ah
inay horkeento annaga marka ay xukuumadda na soo gaarsiisay ayaan ka howlgalnay waajibkeena waa ka gudanay madaxweynahana gacantaan u gelinay waana saxiixay halka xilli dambe way soo maahan iyadoo dhowr bilood dhiman tahay madaxtooyada yaalla inay u kulushahay inay jirtaa xildhibaan Dalxa bilihii u dambeeyay unbay ahayd soo maahan marka aad sharcigan ku soo baraarugteen 3 sano ka horreysay annaga xilligii naloo keeno ayaan ku leeyahay annaga na soo gaaray ilaahu may maalinta ugu dambayso annaga hal beri noogu heersantay ay tahay waqtiga naloo keeno ayaan annaga waajibkeena gudanaynaa ka hor meeshuu ku maqnaa weydii waad mahadsan tahay fikradaha dhegaystayaasha inoo reebeen qaar ka mid ah aan dhegaysanno السلام عليكم BBC ومحمد شافي الشيخ حسن oo ku sugan islatan magaalada Caabud Waaqi gobolka Galgaduud Soomaaliya hadii aan fikirkay ka dhibto qodobka doodda jimcaha ee galabtii ku aadan doorashooyinka Soomaaliya ee waqti xaadirkan uu hareeyay maranka baasan qaabkii loo wajihi lahaa runtii waxay la muuqataa in ay dalka ka qabsoomi karin doorasho hal qof iyo hal cod ah ama wax loo yaqaan afka qalaad one man one vote maadaama ay waqti xaadirkan muuqato caqabado fara badan oo xukuumadda ku gadaaman qaabkii diyaar galoobi lahayd doorashooyinka noocaas kale ah ilaa khilaafyada u dhaxeeya ismaamul goboleedyada iyo xukuumadda dhexdeedana la saxana ilama muuqato in ay doorashadaasi si habsami leh ay u qabsoomi karto waa fikirkayga mahadsanidin BBC Soomaali السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن سلامية بعد BBC Somali والليلون اسمود أو شوكته عند دلك اليمن جرهن مقالة عطن رنتي دورشوين كالصومالية اللي جمهورن سيهاي هدي أن فكر كي كديبتو هدي لو هو حلو جود بيا دورشو هل إيو هل قفة وح باس كذا قدر كيسة ووقت كذا دافيسة دورشة ده لو بدكون يكوي لو تنكفوض النقصة هيسة هدي لهيدمو هدي دورشة داس باس كذا أي قدر كتو أما budhacu ku yimaadana waxaan aaminsanahay inuu sii kordhayo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda kuwii dalka hore uga soo shaqeeyay iyo kuwa hadda jooga iyo maamulada intaba marka waxaan oran lahaa biyo meel godan bay iskugu tagaane arintaas laga shiro hana la lafaguro oo dalka iyo dadka wixii muhiim u ah waa inay isku raacaan madaxda maamulka iyo kuwa federaalka iyo kuwa hore u soo shaqeeyay xisbiyada mucaaradka intaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكو سلامي دادية برنامج كي يدمان مرتدى برنامج كبا مقاعيق وبدري عبد الله إبراهيم وكسو أركت ديميني مقالة بورما حرنتو قبل كاوضل رؤهانتي خلاف كهريه دورشة كدعي دون تدلك الصومالي ومد آد لوغو حمادو حسي أهاتي وحانا سنة بدلك وقدعين دورشة قف يعود وقارب بدن او سياسيين اي عرب كله فنيان حسي وحانا وقباقيا سياسيين hadday tahay madaxda talada haysa mucaaradka xildhibaanada iyo maamul goboleedyadaba inay ka heshiiyaan ayna ka waantoobaan khilaafkan hayna filinkeega qabtaan si doorasho ay dalka uga dhici lahayd waanu ognahay in doorasho qof iyo cod aan dalku hadda diyaar u ahayn waad mahadsantiin BBC way mahadsan yihiin qaar ka mid ah asxaabta codkooda noo reebay hadalkaas u dambeeyaan rabaa inaan sii amban qaado doorasho cod iyo qof ah ma dhici karta ayuu leeyahay dad badan baana qaba xildhibaan Dalxa baarlamaanka muddaad ku jirtay waadna ogtahay oo nin dawladnimada ku cusub Soomaaliya ma tihid doorasho cod iyo qof ah kursiga aad ku fadhida baan tusaale u soo qaadano oo degmada Afgooye ah awdhiigle iyo Afgooye inta tagto reeray ku noqoto saf ma u gali karaan inay sanduuq cod kugu ridaan waa ma santahay aad runtii qiimo badan igu fiican inaad i weydiisid yaanu arkaya waayo waxa halkaas aan rabaa inaan oga faa'iideysto aniga marka aan aniga iska soo qaado ka Maxamed Dalxa ahaan maamul goboleedka aan ka tirsanahay waa koonfur galbeed waana ku kalsoonahay oo cabsi igama hayso haddii kursigeyga baydhabo la geeyo oo la yiraahdo doorasho dadban ha lagu aado haddii degmada aan ka tirsanahay Afgooye iyo Saliid iyo Caanoole maanta ugu horumar badan tahay ciidamada dawladda Soomaaliyeed ee iyaga maanta iyo maamul koonfur galbeed iyada ay ka sameysay ayaa waxay u sameeyeen mashaariicda iyo horumarineed ay ka jirto maanta ayaan ugu kalsooni badanahay shalay marka aniga maaha waxaan iska hadlayo rabitaankeyga laakiin xildhibaan qaran ahaan baan u hadlayaa Dalxa aniga aan la qaybsanayo golaha maartay shacabka ayaan aniga aan wixii ay qabaan baan qabaa fikirkaygu ma mid aniga kaligayga ikhuseeya ee jawaabta tan adiga aad kaliya aniga weydiisay maya laakiin waxaad qabtaa Soomaaliya inaan doorasho dadban la aadin la aado doorasho qof iyo cod ah oo sanduuq iyo saf inta la galo waraaqa sanduuq lagu rido mar haddii baarlamaanka uu ansixiyay baan ku eeray atoosh
xukuumaddii ay soo gudbisay sifo sharci ah iyadoo iyada noogu keentay ay tiri waa in wadanka markani loo aadaa doorasho ka duwan tii hore oo si sharci ah oo qof iyo cod ayada ay baarlamaankii hor keentay baarlamaanka labadiisii aqalna iyagoo wada jira ay ansixiyeen madaxweynahana dekareeto uu ku soo saaray qof iyo cod in la aadayo haddii la bedelayana sifa sharci lagu bedeli doono oo qaanuuniya loo marayo ee aanan dad gaara ayaga go-aan aan ka gaarinin ama madal ama cid kale ayaan annaga ku yuto-aynaa ee ujeedkaynu ma aha annaga go-aan bedelaya lama keeni karo iyo tan wax laga samayn karo annaga waxaa rabnaa marka la bedelayo waa in sifa sharci lagu bedelaa ee baarlamankana uu qaataa go-aanka aanan cid kala qaadanin dalxa waa run waxaad sheegayso dhan baarlamaanka la keenay waa la ansixiyey madaxweynaha saxiixay decrete ku soo baxday laakiin ficil ahaan suurtagal ma tahay tusaale waxaad usoo qaaday marka yaa bedeli kara maya bedelaada haynoo dambayso suurtagalnimada macallin ustaad dalxa suurtagalnimada zabiid iyo caana aad ka timid hal maalinaad helicopter ku tagtay galabtiina waad ka soo noqotay saf intay kuu galaan dadkii ehelkaaga ahaa macallin maya xaqiiqada catosho horta waxaana jiran yahay ummadda u sheegin annaga sayidii axaan hadda wada 8 kilometer ee waxaa loo sameeyey oo jaaya subaxdii khudaarteeda xamar aan ku cunahay kooda raalli haw soco waa run intaasoo dhan horumara ka socda waxaan ka hadlayna waa doorasho cod ah waad ogtahay doorasho cod markii la yidhaahdo diiwaangelin bay u baahantaa in dadkii la safay u baahantaa sanduuq in la geeyay u baahantaa wacyigelinay u baahantaa in la tiriyay u baahan tahay intaasoo dhan zabiid iyo caanoolood ka timid ma ka dhici kartaa maba taagnaa horta annaga waxa ummadda ay dadka soomaaliyeed loo sheegayo iyo waxa baarlamaanka dusha laga saarayo ee aanan jirin waa inaan loo kala saaraa baarlamaanku doorashada khasab dadka inuu sanka ka gelinayo go-aankeeda isaga ma qaadan baarlamaanka doorashadii loo keenay inay noqoto ee ay xukuumadda usoo gudbisay buu ansixiyey haddii wax laga bedelayana sidii loogu keenay doorashada ee qof iyo cod haddana in loogu keeno waddadaasi xukuumaddu ay soo barboosgarayso oo ay keento oo nidaamkii shalay ee isaga loogu keenay doorasho qof iyo cod haddana doorashadii la doonayo in loogu bedelo ummadda ayadoo loo marayo qodob ah 2/3 in la helo 3 meelood 2 meel codka baarlamaanka ayaa lagu bedeli karaa ee ma aha inay isu yimaadaan way imaan karaan way shiri karaan maamul goboleedyadu way ka wada hadli karaan madaxweynuhu hadduu ku biiro haddii prime minister uu ku biiro way isla wada gaari karaan laakiin go-aanka iyaga ma laha inay ayaga ay qaataan waad caddaysa warkaaga aad baad umahadsanta xirsi gaaniyan raba inaan u baaqo waad maqlaysa xildhibaan dalxa go-aanka dhuusamareeb ma yaaluu yidhi annagaa sharcigii hore baarlamanka meel marinay haddana waa annagana lagu soo celiyay haddaan wax ka bedelaynayo haddii kale maxaa kaaga baxay xirsi gaani waa mahadsan yahay xildhibaanku waa mahadsan yahay dastuurka dalku horta waa ina la ogaadaa qodobka 60aad wuxuu sheegayaa in 4 sano oo mar doorasho ay ka dhacdo dalka taasi waxay xadidaysaa oo ay qeexaysaa xilka inta uu haynayo xildhibaanka iyo madaxweynaha la doorto ee wadanka loo doorto professor dalxa waxaa la doortay oo la dhaariyey xildhibaanada 27 December maalinta la gaaro waa in uu wareejiyaa kaarkiisa xildhibaannimaduna waa u dhacaya haddii ay taas jirto wuxuu yidhi xildhibaanku waana lagu aamini karaa waxaan lagu aamini karin xeerka ayaga ay ansixiyeen doorashooyinka qodobkiisa 13 faqradiisa 3 haddii uu dib ugu noqdo waxay sheegaysaa 180 maalmood ka hor waa in maaragtay ay keenaan xaliimo yarey iyo guddiga doorashooyinku ay hor yimaadaan baarlamaanka labada aqal oo wada jira taas waa la jabshay ma sharciba ma sharci maahan waa la jabshay oo waxaa laga dhigay 27 May inay hor timaado ayay ahayd oo guddiga ay hor yimaadaan baarlamaanka labada aqal oo wada jira waxay hor yimaadeen bil bay qaateen oo jabsheen 27 June bay yimaadeen labadii aqal ma hor imaana hal aqal bay yimaadeen aqalkii kale maaragtay ayaa wuxuu leeyahay guddiga waxyaabaha ay xeerarka 4 xeer oo kale ay ka shaqeynayaan aqalkii kale wuxuu leeyahay guddiga anaga qaybtii aan ku lahayn la saaray wixii ay soo jeediyeen waa la bedelay waad maqlayseen baan u malaynayaa oo waa la arkayay wixii ay soo saareen aqalka sare ay leeyihiin kan waa la bedelay kan waa la bedelay kan waa la bedelay
aaminid laysma aaminayo inaan lays aaminayn waa caddahay oo wixii gacanta loo geliyey oo ciddii lalahayd ma aha dowlad goboleedyada ma aha soomaali weyntii soo dooratay ciddii lalahayd sharciyadda maaragtay xeerkan iyo xeerarkan ayay maaragtay gadaashooda ka shaqaynayaan aqalka maaragtay golaha shacabku haya anis jawaabtu u imaano hadda haddii waxa lagu aamini karo wax lagu aamini karo jawaab ma u baahnaba hatoosh jawaab ma u baahna wax lagu aamini karo maanta nimanka laakiin iyaga baarlamaankii ah xirsi jaamac gaani wasiiru dowlaha madaxtooyada Jubbaland baarlamaanka dowladda federaalka waa baarlamaanka golaha shacabka ee dhisan ee muddadiisana wili ay xalaal tahay seen wax loogu aaminaynin waxa marka baarlamaanku waxa uu ku shaqeeyaa kalsoonidu ku shaqeeyaa wuxuu ku shaqeeyaa xeerar wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka haddii iyagu jebinayaan ma aqalka sare aan la shaqaynaynaa oo waddanka u shaqaynaya ma kan shacabkaaba u shaqaynaya labadoodii wixii guddiga ay isku darsadeen 17 ahaa oo xildhibaan Ibrahim Yarow uu madaxda u ahaa wixii ay soo qoreen ayaa maaragtay iyagoo marka horeba guddigaasi ay ahayd inay la tashtaan dowlad goboleedyada la tashi ay sameeyaan oo aysan samayn cid ay la tashteen oo u tageen ma jirto hotel airportka aadan cadde ku yaala waad maasanta inaga ma hubna halka ku hay xirsi jaamac waan soo noqonaynaa horaan u weydiinay xirsi jaamac gaani horaan u weydiinay su'aalahaas waxayna sheegeen inay la tashiyo badan sameeyeen xisbiyada mucaaradka labada aqal aan dooda halkaas qodobkaas meesha ku joojino doorasho dadban xal ma tahay waa su'aal kale oo isweydiinayo waxaan rabaa inaan Cismaan Muxiidiin Shaatax u baaqo madaxa ururada bulshada rayidka Dhuusamareeb joogta waad maqlaysaa sida loo kala fogya baarlamaankii oo qayb kamid ah uu dalxa kamid yahay sidaas ay leeyihiin dowlad goboleedyadii adigaaba dhex jooga Dhuusamareeb doorasho dadban xal ma tahay Cismaan Muxiidiin ma sita Atosh runtii waxa xal ah horta wax kasta oo la ogolaado oo shaqay kara oo si nabad ah ku dhici kara caqabad badan aan keenin ayaa horta xal ah anaga dan ka hadalno dareenka bulshada waxyaabaha ay qabaan waxa ay tahay in la helo doorasho xor iyo xalaal ah oo aan si nabad ah ku dhacdo aan keenin maaragta dhibaato badan aan ka dhalan marka taa horta ayaan isleenahay waa muhiim markastaba aan ka duuleena oo anaga aragtideen ay ku saleysan tahay marka haddii la yidhaahdo doorasho dadban iyo mid toosanba kolley waqti hadda haray waxay u baahan tahay discussion badan laga yeesho oo shirarka hadda laga wada hadlo sidii loo heli lahaa doorasho keeni karta in musuqmaasuqa yaraado ama uusan jirin meesha ka jirin manipulation aan lagu sameynin oo ay mataqaanaa madaxda heerka doona ha aadaan aysan ku sameynin maaragta xuquuqsi ayna ku sameynin in maaragta doorashadaas ay naqan mid ka dhalato colaad abuurto oo colaad ka dhalato inaysan naqan mid inay naqato qof kasta oo Soomaali ah ka qaybgalkiisana kor loo badiyo waxyaabaha aan daneynayn anaga waxyaabahaas ayay u badan yihiin marka noocaas oo dhan doorasho dadban ma lagu gaari karaa arrimahaas aad tilmaamayso dhan runtii waa lagu gaari karaa haddii laga heshiiyo oo heshiis siyaasadeed oo dhab ah lagu kabo waxyaabaha hadda asleenaha muhiimadda aada u muhiim waxa ay tahay waddankan Soomaaliya dowladnimadiisa waa dowlad la dhisayo ee maaha dowlad la dhisan oo la maamulayo mar haddii tahay dowlad la dhisaayana waxaa mar kastaba saldhig u noqonaya reconciliation in la helo haddii ahaale mid bulsho iyo gaal mid siyaasadeedba waad maasanta waad ka jawaabtay heshiis bulsho in la helo weeyaan ba tiri waad maasanta heshiiskaasaan rabnaa marka inaan su'aal ka weydiino waa la kala taagan yahay inkastoo Dhuusamareeb wili la joogo la rajaynayo madaxda dowladda federaalka inay meesha tagto ma isleedahay heshiiskaas way gaari karaan adaan kugu bilaabayaa Cismaan Muxiidiin Shaatax heshiiskaas ma la gaari karaa iyo lama gaari karo waxaa ka horeysa oo ah waajib ah in la heshiiyo ayaa qasab ah xaaladda hadda la joogo marka labaad aan kusoo laabto jawaabtaada waxa waaye intii hadda aan aragnay in la gaari karo ayaan aaminsanahay heshiis mar haddii maamul goboleedii waxyaaba minimum ah waxyaabihii ugu yaraa ay ku heshiin karaan ay ku heshiiyeen dowladdii federaalka madaxweynihii wasaarihii aqbaleen inay yimaadaan waxaan aaminsanahay in inta wax kasoo bixi karaan heshiis oo runtii in waqti la geliyo u baahan
waxyaabaha anaga aan ku talina ugu miisaan waxa ay tahay in heshiiska halkan laga gaarayo si farsamo ah marka hore lagu bilaabo kadibna hogaamiyaasha loo gudbiyo. Cismaan idinka ma dhex gasheen idinka qayb ceenkeed ku leedihiin heshiiskaas Cismaan Muxidiinow? annaga horta door aada u muhiim badan ayaan ku leenahay bulshada rayidka oo ah runtii laba arrin horta ugu muhiimsan waxyaabaha hareeraya hadda arrimahan doorashooyinka ama aragtiyaasha kala duwan ee siyaasiyiinta. waa midee waxyaabaha ay ku doodayaan siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha markaa aragta iyo waxa u qarsoon waa kala duwan yihiin. tan labaad waxaa jira siyaasiyiin ama dad oo actress ah oo lug ku leh saameynna ku leh go-aanooyinka qaarkood oo aana muuqan. waxaa is leeyahay marka bulshada rayidku waxay access u leeyihiin inay arkaan dadka aan muuqan, waxay access u leeyihiin inay ogaadaan waxa qarsoon, waxay access u leeyihiin inay isku soo jiidjiidaan waxyaabaha lagu kala duwan yahay, waxay awood u leeyihiin inay awood. waad maadsanta Cismaan Muxidiin waa maadsanta Talxa oo aan kusoo jeedinayno indhaha dadka maaragta waxa ka soo dhowrsan mareeb si heshiis loogu gaaro. taas oo ku kalsoon in heshiis laga gaaro. waad maadsanta waad ku kalsoonta in heshiis la gaari doono. maxamed cumar Dalxa xildhibaan Muqdisho aad joogtaa ma is leedahay idinka oo fikirkan aaminsan iyo dowlad goboleedyada dhuusamareeb jooga waad isu iman doontaan aakhirkii waad isfahmi doontaan? annaga cid ay nagala dhexayso umalayn maayo catoosh is-afgarasho waa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ama aqalka sare maamul goboleedyo ayay kasoo wada jeedaan. waxa aan wada gaaraynana waa kuwa dhammaan iyaga mid waliba isagoo matalayo maamul goboleed haddana ama bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ayadoo maanta mid waliba matalaadiisa ay ku salaysan tahay horta ayaa golaha go'aamadiisa markuu gaarayo iyadoo qaramaysan ayaan ku gaarnaa. waxa haddii ay dadka dhiman yihiin iyaga loo baahan yahay inay soo dhamaystiraan waa hadda dadka odayaasha wada tashiga iyaga ka dhexeeyo oo qodobka markaad fiirisid 52 catooshow wuxuu iskaashiga marka ay maamul goboleedyada iyo iban dawladda dhexe iyaga ay yeelanayaan waxa qayb ka ah in xiriir wada xaajoodkaasi ay ka mid noqdaan odayaasha dhaqanka culimaa u diinka dhalinyarada iyo haweenka. marna ma aragtay ayagoo la shirayo oo awoodda dalka ay ku leeyihiin inay la wadaagaan talada ay wax ka siiyaan iyaga unbaa intooda isku kooba. odayaashaasi meeshii la mariyay baa la rabaa baarlamaankan in la mariyo. waxa aan diidanahay waa in loo hoggaansamaa waxa dastuurka noogu qoran. annaga ma diidani maamul goboleed waxa isaga uu leeyahay awood way qoran tahay inay ayaga iskaashiga horumarinta dhammaan wixii amniga ku saabsan inay ayaga iyo dawladda federaalka ay wada galaan ka wada xaajoodaan xaq bay u leeyihiin. wax kastoo laakiin markii sharci ay tagto in la horkeeno golaha shacabka mana aha awood aan marorsanayno, ma aha midaan ku doonayn inaan kuraasta kusii fadhino aan muddo kororsi aan samaysano. waa waxa noo ogol yahay xuquuq sharciyeed oo aan rabno. waa hadday sarraynta sharciga qodobka 4 ee ku qoran sida uu yahay loogu shaqaynayo. hadday ay tahayne sarraynta siyaasadda qof waliba way u furan tahay. siyaasadda wuxuu rabaana sheegaya waad maadsanta uu doono hadday wax u socon waayaan hadee xildhibaan Dalxa waad maadsantahay. hadday meesha taalana anaga kuma anaga muruq taabasho yani wax kuma lihin laakiin sharci baan wax ku leenahay. aad baad u maadsantahay. sharci baan wax ku leenahay. hadalkaaga u dambeeyay halkaad weli nagala socotaan waa BBC doodeeni jimcaha ee falanqaynta ayaan bartanka kaga jirnaa. mar kale dhageystayaasha codkooda noo reebay aan wada maqalno. magacaygu waa Nimcaan Jaamac Maxamed oo jooga magaalada Burco. doorashooyinka Soomaaliya qaabka ay noqonayaan la isku hayo muranka weyne uu ka taagan yahay nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa iyo waliba xilliga ay dhacayso. runtii waa mid muujinaysa in xilligii lagu talagalay aysan dalka ka qabsoomi karin doorasho marka loo eego caqabadaha ku xeeran doorashooyinka dalka. waxaase loo baahan yahay in wada hadal lagu xaliyo arrimaha ku xeeran qabsoomida doorashooyinka dalka wax kastana lagu dhameeyo wada tashi iyo isqancin si loo helo nooc doorasho oo lagu wada kalsoon yahay oo xilligii lagu talagalay qabsoonta. wad mahadsantiin BBC. Assalaamu alaykum BBC Soomaali. magacaygu waa Sayid Cumar Ismaan Abdullaah oo ka soo hadlaya magaalada Dhuusamareeb. waxaan qabaa doorasho qof ay cod inaysan dhici karin iyadoo la tixgelinayo xilliga ka dhiman doorashada amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha
faraha badan ee ku baxaya doorasho qof iyo coda sidaa darteed waxaan qabaa in la aado doorasho dadban ayadoo la tix raacayo warmutiyeedkii ay soo saareen dowlad goboleedyada Soomaaliya sidoo kale waxaan ugu baaqaa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inay ka heshiiyaan qaabka ay u dhici lahayd doorashadaas dadban maadaama aan doorasho qof iyo cod dalka iska dhici karin sidoo kale waxaan soo jeedinayaa dhammaan saamiliyada siyaasadda Soomaaliya inay aqbalaan doorasho dadban iyo sidoo kale heshiiska ay gaari doonaan madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ku shiri doona asbuucan magaalada Dhuusamareeb wad mahadsantihiin BBC Soomaali Ismaaciil muranka doorasho ka bilowday dalka Soomaaliya ka hor waxa jirtay in madaxweyne Farmaajo ku baaqay bisha Juulay 5teeda in maamul goboleedada iyo dawladda dhexe isugu yimaadaan magaalada Muqdisho si ay ka tashiga dalka looga wada hadlo halka markay marayso baaqalka sare kuraasi loogu daray gobolka Banaadir waxa dood ka keenay Jubbaland iyo Puntland hal kursi oo ka soo jeeda gobolka Banaadir ma jooga labada gobol ee kale laakiin labada gobol kuraasti ka soo jeeday magaalada Muqdisho cashuurta dadka laga qaado ayay mushaharka ku qaataan hasan noqotay muranka iyo doorashadii waxay u bedeleen inay kaga wada hadlaan magaalada Dhuusamareeb erayada soo saareen waxa kamid ahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inay shirka xiga ugu yimaadaan magaalada Dhuusamareeb anu in halka dawladda dhexe lagu baxdiray bay muuqata hasan noqotay waxay yiraahdeen marxaba waxba kama qabno ilaa waxay og yihiin beesha caalamka inay ka dhargiyeen dawladda dhexe nama maqashee taasoo kale mee wacanta ragga saamileeda isku sheegay waxaad ii weydiisaan doorashadu hadday dib u yara dhacdo sida ay guddiga doorashada iyo ay sheegeen baarlamaanku in shaqadooda loo daayana ay tahay ama hadda xilligeediba ha lagu qabto haddii ay ayaamo doorashadu dib u dhacdo dalka miyaa la rogaya haddaanan ku fadhiisan kursigin ama se aanan cadkii cunin ciideeya miyaa way mahadsan tahay Faadumo Yuusuf Ibraahin oo aad saaxiib noogula ah boggeena Facebook waxa ka sii horeeyay dhowr qof oo codkooda noo reebay ugu dambeyntii gabagabadii aan soo gaarnay waxaan jeclahay inaan xalka wax idinka weydiiyo Xirsi Jaamac Gaani wasiir dawladda madaxtooyada Jubbaland maxaa xal ah halka la joogo xagee laga aadi bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasanta Catosh waan dhageysanayay dadka kale iyo saaxiibadeedaba waxa loo baahan yahay wadankan in maartay doorasho la qabto doorashadaas oo amni leh siyaasad leh dhaqaale leh sharci leh sharcigi waa midka dooda ka taagan tahay oo xataa guddiga sharciga doorashooyinka maartay su'aalaha badan ay ka taagan yihiin waa dhaqaale ahaan looma hayo dhaqaale maartay 1% waxa lagu qabto amni haddaan indhaha la istireen wadankan amni loogu qabto doorasho oo meelaha doorashooyinka la rabo in laga qabto ay lagu ilaalin karo ma jiro siyaasadda waa mid maartay intaasoo sanadood hadda labadii sano ugu dambeysay beesha caalamka ay ugu baaqaysay dowladda federaalka war wada fariista wada hadla heshiiye fahma intaasna maartay iyadana waa ugu fogay intaas maadaama ay la adahay waxaa cad oo xaqiiq ah ninkii doona kursigiisa hawdoodo ninkii doonaaye asagoo la rabay in asaga go-aan laga gaaro go-aanka anaa isu gaarayo oo muddo kororsi samaysanaya ha yidhaahdo waxaa xaqiiq ah in maartay wadankan aysan doorasho qof iyo cod ka dhacayn doorasho dadban oo laga heshiiyey oo la isku fahmay oo wadankan hore u sii wada oo aan dib u celin oo maxaan ku ilaa la isla ogol yahay ayaa loo baahan yahay in la qabto ciddii aan saa ku qanacsanayna waxay u muuqanaysaa inay wadanka rabto inay gadaal u celiso ummadda Soomaaliyeed xirsigaani laakiin baarlamaankii waxay leeyihiin annaga xaq u leh cidda waxa go'aamina waa annaga golihii shacabka ee ma ahan qolyihiina Dhuusamareeb fadhiyo baarlamaanka waxaa la siiyey oo la soo siiyey afar sano waxaa la yidhi orda oo ummadda u shaqeeya maalinta ay 4 sano ka dhamaato kursiga ayagu ay ku fadhiyaan ma oran karaan anaa kororsanaya anaa gatay anaa maartay kororsi maysan sheegin ee waxay leeyihiin sharci ahaanshaha kororsi maysan sheegin wasiir kororsi waxaa sheegay Xalimo Yarey guddigii doorashooyinka oo ayagu ay maartay u waramay oo hortooda hadal ka jeegay ayaa waxay sheegeen inaysan doorasho qadan karin xilligii loogu talagalay doorasho cod iyo qof ah xirsigaani Xalimo Yarey xildhibaan ma ahan waa guddi doorasho farsamo loo diray farsamayna ka hadashay baarlamaanki waxay taagan yihiin sharciyad baan leenahay soo kama hadlayaan sharciyada ay leeyihiin waxaa ka shaqeynayay oo doorashada farsamo ahaan uga shaqeynayay waxay ahayd guddigii doorashooyinka waxay leeyihiin doorasho ma qaban karo marka ma waxaa leeyahay ninkii asaga laga tashanayay
asaga la rabay maaragtay kursigii lasoo siiyey 4 sano inuu maalinta uu ka dhamaado uu baneeyo miyaa la oranayaa maaragtay waqti siyaasi oo waqti ku darso waxaas wax sharci ah ma ahan wax maaragtay waad maasanta qofka la gaarayna asagoo go-aanka isu gaari kara ma jirto waad maasanta maxamed cumar dhalha xildhibaane haye xalku muxuu yahay annaga qodobka 47 ee sharciga doorashada ee nasiinayo qeexaya eele maarta sharciga doorashooyinka waxa go'aanka gaarista iskale baarlamaanka ka baan annaga rabnaa in naloo daayo oo aan sharci aan ahaan iyo maarta iyo dastuuri ahaan aan rabno in annaga kaliya aan maarta doorkeena u noqdo caqabadaha jirana waa mid hadda taagan sidiisaba maamul goboleed markii la dhisayay golaha shacabkana lama horkeenin asaga iyo aqalka sare haddii ayaga awoodooda loo qeexi lahaa ayaga iyo xataa dawladda dhexe ee waxa mid weliba asaga uu yahay iyo hawsha uu qabanayo waajibaadkiisa oo sharciyeysan ee maalintaasi dastuuri ay noqon lahayd waxaan ma yimaadeen laakiin madashiina dhacday oo waad maasanta ay dhufatay ayaa waxaana ay ka dhasheen ma garatay marka xilka muxuu kula muuqdaa annaga waxaan weli ku yutayna waa dastuurka iyo sharciga qodobka 47 haddii meesha laga saarayana cidda ka saari kartana waa baarlamaanka sida haddana uuna siinayo qodobka dhahayo wax ka bedelid iyo wax ku darid waxaa iskale qaanuuniyan golaha shacabka ama baarlamaanka labadiisa aqal aad baad u mahadsan tahay marka halka waxaad leedahay waa in dastuurka loo noqdo oo baarlamaanku uu wax go'aamiyo awood marorsi aanan soo gelin iyo wax gooni dad u wata waad mahadsan tahay cismaan muxuudiin shaatax 30 second ku soo koob halku muxuu yahay halka wuxuu ku jiraa in heshiis siyaasadeed la gaaro kaas oo keeni kara in maaragta wax la isku raacsan yahay laisla ogolyaha ka dhalan karo lagana qeybgeliyo qeybaha kala duwan oo dhan ugu horeeyaan bulshada rayidka cid alle ciddii markaas ay muhiim u ah arrimahaasito waana kala hadalna mas-uuliyiinta hadda aan la kulanay oo halkan joogaan inta way soo dhaweeyeen ka qaybgalka bulshada rayidka shirka wadatashiga waxaan rajeynaynaa marka in baarlamaankana ay ka warsugaan aysa ka hor dhicin wax ka socda dhuusamareeb waxaana lama huraana wax alla wixii la go-aamiyo oo dhuusamareeb lagu go-aamiyana ay la geyi doono baarlamaanka in la geeyo ay waajib tahay marka muhiimadda waxa ay tahay mar haddii halkan ay soo gaaray sharciga doorashooyinka la dejiyay waqtiga haddii la dhaafo uusan ahaanin constitutional naqanaynin waxaa aada muhiim u ah heshiis siyaasadeed waad mahadsanta waxaa muhiim ah heshiis siyaasadeed in la gaaro aadaad u mahadsanta dooda intaasaan kusoo khatimayaa waxaa nagala qayb galay cismaan muxuudiin shaatax madaxa ururada bulshada rayidka xirsi jaamac gaani wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland honorable maxamed cumar dhalha xildhibaan baarlamaanka ka tirsan saddexdiina waan idin mahadcelinaya falanqayntii jimcaha intaasaan kusoo khatimayaa barnaamijka waxaa wadajir u soo wada saaray xasan cali geeli cabdifataax cagayare ciddii uu seegay mar kale bbcsomali.com website-keenna ka dhegaysan kartaan anigu waxaan ahay cabdirasaaq catosh waad ku mahadsantihiin inaadna dhegaysanayseen tan iyo kulankeenna kan xiga nabadgelyo